بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى عن رمنا مكتبة مركز دار السنة إن نقوق بأنه محاضرين عاوينو بالعلمية أما كلمته محاضراني أما كلمتان صوص عضاهي وحي تبعوه هنا دبت شوغان محاضرات كشيخ أمل oo ayaga laftirkooda meel ka soo bilowday intaanan marka u gelin caawa arrinkeenu wuxuu noqonayaa hordhac waxay noqonaysaa inaanu muxaadaradan inaan ku xiriirino muxaadarooyin ka horeeyay oo baxay waxa baxay kuwii sheekh Umal oo 14 aha waxa baxay kuwii sheekh Ukaash 5 aha waxa baxay kuwa sheekh Cabdullah al-Barbaraawi oo ayagoon dhameystirmin la joojiyay 17 marayay waxa baxay Dr. Xasan Ali Warsame muxaadarooyin uu leeyahay 4 aha fi nafs الموضوع أنا موضوع أيام ربا إن شاء الله تعالى إننا وحكي إلهه تاريخ مركب محيطها محاضرات كاس محاضرات كتاريخ وحي كذا شيء سكوبان بان إذنك إذن كوجش يا طلبة علمي كان هذا هرت إذا فردية يعدي كلو دب كده جيسان دون تو عن أول تاريخ ذا لقى يابا أما إنيسان وركين أما يهالمانت وحي كذا شيء سعد إذنكم بوجيدين هل كان مركا بشهر رمضان وانا فسح قلنا بشي شوال دورة واحد لقوا قبتي نيروبي لقوا قبتي وانا نيروبي الصفري هل كان مركز نيروبي waxaa lagu qabtay dowra lagu qabtay culimo isugu timid talabatu cilmi kitaaba lagu akhriyay xadarooyin balajidiyay kala duwan habeenkii ugu dambeeyay su'aalo la qabtay su'aalaha waxa kamid ah marka su'aal si marka loo dhigo hal hadii la kala qaadana laba way inooga dhig su'aalahaasi waxay ahaayeen ururdiimeed in la furtaahay ma banaanta xisbi in la sameeyo ururdiimeed maxay diintu ka qabtaa wadaadadii marka su'aasha ka jawaabayay adigu ilaa hadda waxaan xasuustaa saddex baa ka jawaabtay su'aashaas aan mid kamid ahaa Sheekh Cabdullah al-Barbaraawi Dr. Uthman bay ahaayeen labada sheekh oo kale waxa markaa wixii nooga muuqday ahaa inaan urdiimeedku wax banaan u san ahayn waa mas'ala cilmiyeed inaysan wax banaan aysan ahayn waxaanu sheegnay shidada iyo dhibka ay muslimiinta gaarsiiyeen waxaanu sheegnay adillada ay khilaafsan yihiin urdiimeedku waxaanu soo daynay dood macquul ah cidna maanan dhaleecayn cidna maanan ku abiyoon cid gaarana maanan barabagaamin ama dacayadeyn su'aasha labaad waxay ahayd idinku urbaatihiin idinku urbiyaati ama si kala hadii loo dhigo salafiyiintu iyagu xisbi baa تانا وانو ديننا وحنا السلفيين حزب ما حزبنا يعني ارجع حزب waxa loo yaqaan wala yaqaana urfiga yeesuu dhisanya wuxuu yahay taabay culimadu anfiyeen waana inay u jeedaan midka mutaaraf calaygaana dawaa sheegana waxay yiraahdeen ra'iis balihin oo golayaal kala duwan miliin oo urusada loo dhiso wala yaqaana ururada soo dhisay hadda mar raba inaan ka sheekeeyo labada su'aalood marka dood baa ka kacday markaanu soo noqonay kadib baa waxaana soo gaartay su'aal sheekh Umal la weydiinay su'aashaasi waxay ahayd sheekh Umal waxa la weydiiyay waxa ka socda baa leeyahay Nairobi iyaantan ololahaas waxa looga soo horjeedaa jamaacadka islaamiga ee khayrka isu kalmaysta su'aasha marka laba dhinac marin habaamin bay ka ahayd dhinaca koowaad ay marin habaamin ka tahay waxa weeye horta olole ma jirin sida Sheekh Cabdullah al-Barbaraawi inta dhageysatay ee ogeydo ka hadlay olole meesha ma ka jirin meesha dowra ka jirtay 10 lagu akhrin su'aal cilmiyaad timid waan laga jawaabay dhanka kalena marin habaamin bay ka tahay jamaacadka islaamiga ee khayrka isu kalmaysta ma jiraan jamaacad islaamiga khayr isu kalmaysta waaqic wala diidi kara Soomaa labada jamaace wada shaqeeyaysa ee khayr ka wada shaqeeya ee is ogolay waa kuwe jamaacadka hadda waaqiceenan Soomaalida ka jira annagu sida ay hadda wadaadada walaalaheena sameeyeen waxaan la fahmaynin qofka hadda aragti gartay inaan la fahmin moogtahay meel kala loo raray qodobaan ku jirin baa lagu soo daraa hadda aragti in lagu kala tago asha hadda aragti in lagu kala tago gartay midaan jirin baa lagu soo daraa ama mid ku jira laga saara wala lagu heshiin bay waaqiceenan Soomaalida hadda inta aanu anagu naqaano urur Soomaali ay aanu ognahay in Soomaali ku jirto waxaanu naqaanaa islaax oo al-ikhwaan al-muslimuun waxaanu naqaanaa i'tisaam waxaanu naqaanaa tabliiq waxaanu naqaanaa daa'ish waxaanu naqaanaa al-shabaab waxaanu naqaanaa saadicuuna bil haqq oo yaan dhaxay ku dhawaaqay Sooma waxaanu naqaanaa suufiya turuqa suufiya oo anwaac iyo ashkaal firaqda aan horta ka hadlayno aanu leenahay war waxaas inay muslimiintu u kala baxaan ma banaana kuwa weyn kuwaasina dama wada shaqaystaan wala la yalwa isla diyan oo kala tageen oo kala dhaqaaqeen waxba isugu ma jiraan annagu kuwa aanu diidanay haddaad noo keena walaalo is ogol oo xagee joogaan jamaacad is ogol qola kasta masaajideeda leedahay maraakisteeda leedahay ma ka hadlayna laba wadaad ama saddex wadaad oo laba firqa kala ah oo marmar isu yimid ama meel nadoo ku kala qabtay ama dana isu keentay maslaxad shakhsiyeed isu keentay ama mid caam isu keentay ka hadlaymayno taas waa laakiin ka jamaaca tabliiq waxay qabsadaan jamaacad Soomaa qof iyo labada isagu si iskiisa iska aad isxilqaamay u tagay ka hadlamayno laakiin i'tisaamkii oo geediyo oo masaajidoodii dhan soo xiray oo madaaristoodii oo yeelay kulanka walaalaheen baan maanta u maalinayna la fadhiya miyaada la arkay ama ikhwaankii ku guuray iyaguna maya
tacaawun kama dhexeeyo salafiyiintuna saasoo kale weyse tacaawun xisbi uu kala dhexeeyo ma jiro nadwooyinku waa gaar dowlooyinka ay qabsadaan salafiyiintu kuwa ay xisbiyiintu qabsadaan waa gaar wax xiriiriya wax tansiiqiya wax tacaawun oo ka dhexeeya ma jiraan jamaacadka islaamiga ay wada shaqeeyahay haddaan la iskhatalayn oo khayrka ka shaqeeya ma jiraan labada marin habeen baa su'aalaha ku jira labadaaba iyagoo isagoon sheekh umal ka hadal wuxuu aaday salafiyiintii weerar wuxuu ku soo qaaday ba'an wuxuu yiri waa xisbi ka daran xisbiyada hatta xisbinimada kaga daran yihiin kuma soo ka daran midka ugu daran inuu yahay buu sheegay su'aasha ninkii dhageystay waa arki karaa kulli waa ka daran yihiin buu sheegay wuxuu sheegay inuu cadayn doono waxa ay yihiin wuxuu tilmaamay xisbinimadu inay bannaan tahay intaa marka uu sheegay oo su'aasha uu ka baxay si gaarana uu soo hadal qaaday raggii dawladda tagay oo yiri halkaan hadda ayaan way dawlad ku qabteen culimo isu keenay qaar ka cilmi badan baa jooga ama la mid ah maxay kutubtan akhrin kale loogu yeeri waayay hadalka ayuu iska galay hadalka marka dad kala duwan baa ka jawaabay wadaadaan isogeyno aan ballameyn baa ninba meeshiis ka tuuray laakiin ahlu sunnah waxa lagu yaqaanaa maadada ay haystaan baa maadada saxiixa ah maadada markay saxiixa tahay tacbiirkii la doonaa lagu cabiro saxdi ba iimaanaysa sheekh islaam ibn taymiya wuxuu leeyahay maadada saxiixada waxa lagu gartaa tacbiir kasto lagu soo cabiraa iyadii meeshii ba iimaanaysa su'aalaana la weydiiyay oo sheekh umal ahaa in waxa aanu diidanahay aan suurayno baanu sheegnay hadday tahay xisbiga xisbinimada aan diidanahay qaabka ay tahay iyo waxa ay tahay iyo midda aanu nafteena ka anfinayno inta marka ay hawshu ay marayso sheekh umal muhaadarooyin buu qabsada bayna xisbi salafi wa manhaj salaf uu bixiyay marka la isu geeyo 14 muhaadaro ay ahaayeen laba muhaadaro mid muqaddimo tahay iyo manhajka salafka uu ka hadlo iyo xisbi maxaa la yiraahdaa oo sharaxo labadaas aas kaga hadlo todobadii ku soo xigtayna waxay ahaayeen weerar aan meel loo meeldeyn oo maxaa laga sheegay maxaa nimanka laga sheegay maxaa meel lagu qoro maxaa la yiri maxaa youtube ku jira dagaal baan bay ahaayeen sagaalka markuu israaciyo bidumidii tobnaadna sheekh abdul qaadir ukaash buu ku radiyay waa u yara kaadsaday halkaas wuxuu yiri waa ka baxaya soo gal sheekh ukaash baa soo galay wuxuu sheegay inuusan masaa'ilka ka wada hadli doonin qayb kamid ah inuu ka hadlayo qaybtiibu ka hadlay waana ka baxay wadaadada salafiyiinta uga bax cidii rabtay inay gasho waana la hadlay wuxuu si dalay wuxuu yiri sheekh umal 10 habeen baa lagu suganayay raga sugo sheekh umal ma yeerin jaanis ba ma siina hadana waa isku soo gal qaab aragtan ah soo artamaya soo gal afar kale ba hadana ka sii daay 14 buu xiray 14 markuu xirayna gogol buu dhigtay munaadaro codsaday halkaas la mar inta ana u gudbin halka maxaa ku xigay waxaan rabaa inaan la qabadsiiyo sheekh umal muhaadaraadkiisaas wuxuu kala baxay dariiqii culimada uu naqaashi jirtay waa kala baxa wuxuu la aaday meel wax ka soo celin kara oo islaama oo soo celin kara aanay jirin gartaa waxa uu ka dhigay gar qaloocan gartaa haday qaloocato oo la qaloociyo oo la xumeeyo dee waa xumaanaysa labada mas'ala la isku hayay idinku xisbiyiin baatii taa inuu xoog saaraa la rabay caddaamaheedana keeno xisbinimadu waa banaantay ma banaana haday banaantay inuu keeno taama samayn wuxuu sameeyay sheekh umal koo wuxuu horta weerar ba'an uu ku soo qaaday salafiyiintii waxyaalaha marka macquulka ah ama dood gali kara ka hadlamayo laakiin waxa aan inaba la aqbali karin ee sheekh umal yeelay waxa kamid ah inuu isku dayay salafiyiinta geed dheer iyo geed gaaban wax allaala wuxuu heli karaaba uu ku sameeyay inuu ku calaamaday inay yihiin jawaasiis ma ha u shaqeeya dawladaha islaamka u shaqeeya gaalada kuwa ugu daran yuhuudda u shaqeeya oo kristanka u shaqeeya waxa la isku qabtay mas'ala la isku qabtay xisbi baatiin iyo manhi maxaa keenay jawaasiis baatiin ilaa hadda waa garan la wuxuu yiri sheekh umal reer galbeedka waa mareykanka iyo reer yurub iyo kuwaas maxaa la yiraahdaa islaamka noojiyay reer galbeedka iyo xataa israa'iil waxay u arkaan kooxdaani sida ay u shaqeynayso inay danahooda iyo maslaxadooda ka shaqeynayaan taqriir ay soo taasay 2006 waxay dardaarantay way dawladda Mareykanka u dardaarantay in tayaarka madkhaliga ah in la taageero si taxadar ku jirana loo taageero waaya wuxuu ku daray sheekh umal oo uu yiri qofkii gaalada iska dhicinayana way ku dhagayaan kii gaala iska dhiciya way ku dhagayaan qoladani marka qaabkay u shaqeynayaan oo islaamkii ruuxdii iyo quwadii iyo awoodii warkii gaal iska dhicinahay kii gaal iska dhicinahay si garana isaga dhicinahay waxa way lugta la qabana su'aasha marka isweydiinta la waxa weeye oo la rabo bal in laga jawaabo mas'aladani waxay ahayd mas'ala cilmiya wax la isku hayo waxay ahayd mas'ala ku saabsan xisbiyadu waa banaanta iyo ma banaana maxaa keenay dacaayada iyo propagandada maxaa keenay dadku indhaha mala dhagahana mala salafiyiintuna wax u qarsoon ma jiraan shaqaday hayaan waa loo jeedaa masaajiday hayaan baa loo jeedaa raakistay hayaan baa loo jeedaa waxay qabtaan muxaadarooyinka jeediyaan baa loo jeedaa shaqa yuhuud iyo kristan inaysan hayn waa loo jeedaa
sheekh umar oo ninka weyn oo odayga nin culumaana oo haddaan oranaynin hadda culumadii wuu ka baxa maxaa ku khasbaya inuu xusuumtiisa iyo mukhaalifkiisa u saa u eedeeyo wuxuu yiri sheekh umar saanu sheegnay qofkii gaalada iska dhicinaya bay ku dhagaan sheekh umar waxaan leenahay waa yahay hadday ku filan tahay qofku inuu sheegto inuu gaala iska dhicinayo in laga aamuso adigu maxaad ugu dhagantahay daacish iyagu waxay sheeganaysaa inay gaala iska dhicinayso maxaad ugu dhagantahay al-shabaab iyagu waxay sheeganayaan gaala iska dhicinaya maxaad al-qaacida ugu dhagantahay iyagu waxay sheeganayaan gaala iska dhicinaya eraygan gaalan iska dhicinayna ama gaalan la diriirayna dhibta uu muslimiinta gaarsiiyey miyaa la ogeyn qofku intuu wuxuu raba sameeyo dadka laayo oo muslimiinta laayo oo dhibaateeyo in la yidhi warkadaa dhibaatada muslimiinta aad ku haysid iyo hagardaamada iyo dhibta aad samaynaysid inuu yidhahdo yuhuudda loo shaqeeya oo gaaladaa loo adeegaya oo waxa la diidan yahay in gaalada la iska dhiciyo may walaa lama diidan in gaalada la iska dhiciyo gaalada ninkii iska dhici gaalada hala laayo wadamada islaamka ay haystaan ninkii maaragtay laga haysto hadda meesha uu sheekh umar joogaa gaalada uu la joogaahi dhul bay muslimiinta ka haystaan ha ka kaciyo sheekh umar laakiin in muslim inta la dilo la yidhaahdo guryaha muslimiinta la qarxiyo caruurtooda la laayo la yidhahdo gaalaan iska dhicinaynaa ninkii yidhaahdaa war isaad wax u wadaan sax maahana gaaladu la jiraa warkaasi war sax maaha sheekh umar wuxuu yidhi acdaadii ilaahay oo cilmaaniyiintii iyo malaaxidadii iyo gaaladii bay shaqadoodii qabteen shaqadoodii baa loo qabtay shaqadoodii bay u hayaan markay shaqadoodii u hayeenna nimankaasi jeegay bay u seexdeenba waaya waxa kaaga sii darana uu leeyahay shaqadaa lacag la'aan bay ku hayaan wax kharash ayagoon gaalada ku bixin ba shaqadii gaalada ayaa haya salafiyiinta haya calmaaniyiintii iyo mulxidiintii iyo wixii diinta nacba oo dhan ayaa iyagana ka nastay shaqadoodii bay ka nasteen laanna waa loo qabtay shaqadoodii waa loo qabtay in ducaadda la duro dacwada la kala eriyo maraakiista la kala fujiro culimada iyo dadka wax ka qaadanaya la kala jaro waa shaqadii calmaaniyiintii iyo mulxidiintii iyo gaaladu ay rabeen waay arrinkii iyagoon shilin ku bixinin oon kharash ku bixinin ayaa la qabanayaa waa seexdeen marka waayahay yani xamaaqada salafiyiintu meeshay ka gaareen inay adduun iyo aakhirada seegaan aakhire inay seegaana gaalo la shaqeeyaan shaqadoodina u hayaan adduunna ay seegeenoo xataa haddee jawaasiistu lacag baa la siiyaayo adduunyay helaanoo gawaari qurux badan bay ku socdaanoo dhul fiican bay tagaanoo wax dalxiis bay tagaanoo nolol bay haystaan adduun say doontaba ha noqotee intaa midna ma haystaan taana sheekh umar waa ku soo riday maxay tahay sababta uu sheekh umar u leeyahay shaqadii gaalada ay hayaan wayna ururada ka hadleen ma wax kale ah shaqada gaalada ay hayaan ururada wuxuu yidhi waayo ducaadii bay durayaan maraakiistii bay ka hadlayaan maraakiistii bay kala fiijinayaan ducaadee culmadee sheekh cabdalla alberberaawi wuxuu aad u sheegay inay ku badan tahay ijmaalka sheekhu waa kuwee culummadu waa kuwee ma ducaadda salafiyiinta haddii la yidhaahdo qofkii qolo wadaadaa ka hadla gaaladu u shaqeeya oo kadiga gaalada u shaqeeya hadda adigu ma la odhan karaa shaqadii gaaladaad haysaa waayo salafiyiinta oo aad adigu qirsan tahay inay salafiyiin yihiin oo ahlu sunno yihiin culummo inay yihiin dad sunnadii u hiliyey inay yihiin maraakiis iyo khayr fara badan inay hayaan ducaad inay yihiin khudaba inay yihiin dakaatira inay ku jirto inta wadaadada kale ku jirta in la ege inay ku jirto baad suur xumayn iyo dagaal baad ku qaad shaqadan yaa u haysaa hadduu qof inta iska soo fariista uu yidhaahdo sheekh umar shaqadan wuxuu ahayaa ruushka shaqadan waa shaqadii ruushka ducaadda iyo xirxiray waa shaqadii faransiiska waxaas maxay tahay war culummo miya ma hadduu yidhahdo waayo annagu waa kala duwannaha annagu idinka unbaa idin radinaya idinku dee jamaacadkii o dhan baa radiyaya taasi may jamaacadka oo inta aan radinay iyaguna waa radiyeen sheekh umar wuxuu radiyey tabliiqa sheekh cabdullahina waa sheegay wuxuu radiyey tabliiqa wuxuu radiyey assaadicuuna bilxaq wuxuu radiyey qaacido wuxuu radiyey shabaab suufiyada iyagana de waaba baabkiisii weeye baabuhu lkabiir weeye kolley waa radiye ikhwaanu muslimiinka buu aad ugu celceliyey ayaga inuusan si toosa uga hadlin baa jirtay laakiin raggiisaa ka hadlay saaxiibadii baa ka hadlay ikhwaan muslimiinka iyagana radiyey jamaaca aadayseen noo sheega aan ictisaamka ahayn sheekh umar iyo ictisaamku waxay u yaqaanaan wadaadada iyo culummada iyo hadday arta iyagu sheegay ictisaam bay u jeedaan cid kale uma jeedaan sheekh umarna waa soo baxa muxaadaraadkiisa jamaacada keliya ikhwaanka waa soo qaadqaadaya xataa sayid qutb in la radiyo waa ogolaa jamaacadka uu soo waa muxaadarada cidda keliya oo uu yiri waa ahlu sunne oo waa salafiyiin oo waa ahlu xaq yani uu yiri xaqay u dhow yihiin ictisaam bay ahaayeen iska soo gaabsan marka wadada una raaxe dadka u sheeg yani nimankan moogtahay culimada laga hadlaa culimada la caaya culimada maaha culimada uma jeedaan wadaadada iyagu waa radiyaya waxay u jeedaan jamaacadooda iyo xisbigooda waxay rabaan inay shaato weyn yani dadka waxaa la rabaa in qofka marka balaayo laga dhigaya iyaga radiya baa waxaa laga dhigayaa inuu yahay nin balaayo aragtay culimada caayay haye sheekh umar adigu kuwaan hadda aad radiyaysid oo aad tuhmaysid
وعلماء وين حتى وعلماء هذه شيخ ربيع بعد شيختين عالم يهي الشيخ هاجي إنه يهي الشيخ محمد أمان الجامي بعد شيخ إنه الشيخ هاجي يهي شيخ ربيع يا شيخ محمد أمان جامي لبضوا بالجامعة الإسلامية ورجعوا كفانا يعني لي الدكتور وأنك سوق الجامعة الإسلامية كصبح لبضوا بوحي كاهاين محي أساتذة كاهاين بل كليات كقاركود بي عميدين كاهاين شيخ ربيع اسكدا مدرس نما iyo عميد nima kutubta qoraya muqarrar ka aha meesha dakaatirada iyo culimada iyo soo saareys rag waaweyn ka soo baxeen kitaabkiisu muxuu ka ahaa muqarrar ninka halka gaaray way ninka marka halka cilmiga heerka ka gaaray cildigiisu waa banaan ninka caayaya oo radiyaya oo wax kasta ka sheegayay asaga tabiica looma qabsan karo lama raaci karayo sheekhaasina hadduu xisbi ka hadlo galadu shaqeeya shaqadii yahuudu haya aqligaasi yaa loo sheegaya dadku sheekuma la ogaado iyo xisbigiisuba dadku inay aqli leeyihiin dadku inay garasho leeyihiin dadku inay waaga hore ogtahay salafiyiinta waxa shaabad waxa lagu dhiftay aan ka jawaabi doono culimada ayaan laakiin ruduudan sheekuma waxa soo baxday oo ka soo baxday salafiyiintu inay cidna caayana iyaga la caayo radiga bilowgiisa waxaan ku iri warlimaka culimadu salafiyiintu iyaga la caayay dad caaya hadda waxa soo baxday hadda ciwaanka ka bilaabayaan iyaga ciwaanka baayda ka bilaabaya sheekuma hadda ciwaanku ka bilaabay الحزب السلفي waxa lagu yiri xisbi bay dhibsanayaan marka ugu roonow yaa xisbi in la yiraahdo way dhibsanayaan ugu roonow ciwaanku ka bilaabo marka ciida ku soo qorto الحزب السلفي ku soo qorto بينما ragii asaga radiyay awaan ana hada sheekh Abdullah al-Barbarawi maxay ahayd muxaadarada ciwaankiis muxaadaratu sheekh Umar fi al-Mizan sulub gaday sulub maragtay kan الحزب السلفي يعني ودغال با kasoo bilowday xagaba kasoo bilaabanay muxaadarada kasoo ciwaanku kasoo bilaabanay ina Ali Warsame Dr. Hassan Ali Warsame دكتور كاسقنا محاضرة وجدي محوك صوب العاب الانتصاف مما في منهج المداخلة من الغلو والاعتصاف معنى وامحي الانتصاف وكأرقص شو حالة أرجودنا إياه واحد منهج كمداخلة كسبان إيه المداخلة التنافس بالألقاب سمعت وحن يعي إلا عيد وحوي يحنتو ذكرك أخاك بما يكره هل كان لك وانت إذا أنت سودك سده وهذا دكتور حسن علي وقعي كلها ترتمي كذا ما بقى رقبة وهذا سودين دونا قاموس دن او شتائم بو تصاوب سو قاد هذنا وا اسوهينيا و خليه وريان العاين او علمدي بالعاي ولغي يلا waxan maqli jiray darabani wa baka wa sabaqani fashtaka tay darbaxay ugu soo qaaday bu ooy tay garaacay bu ooy intay iga soo hormaray bu dacway waa nooc moogtay la yaab la way qofka in adigu inta adigu gacan qaadka ugu horeysay asagoon ku gacan qaadin kuna dhufatay ooydina waxa la yahay shageelo iyada cunaysa iyadana cabaadaysa taa marka culimadaas in la yiraahdo iyaguna saas de yani heerka gaaray rad markay sameeyaan wacay la yiraahdo wacay tanayaan waxaan uga socday hadalkayga inaan iraahdo salafiyiintu muxaadaraadka sheekh Umar waxay soo saareen in iyaga la caayayo laakiin iyagu ay soo caayeen in iyaga la weerarayo ayuu soo saar qodobka ku xiga waxa weeye oo ku eedeeyay wuxuu yiri culimadii waxay u isticmaaleen dawladaha jaahilka علماء بقى محل لو استعمالي ereyga wuxuu iska ilaalinayay jim iyo sin jaasuus buu iska ilaalinayay waqti inkastoo markii lagu yiri geed dheer iyo geed gaaban ba uu iltizaamay uu yiri cadaymaan u keensado geed wuxuu yiri culimadii dawladaha jaahiliinta ba isticmaalay yani ku dacweeyeen oo wadaadka is qabtaan ba dawladda inta u sheegayaan dhanka kale dhaawacu ka soo gaaray wuxuu ahaa xukuumaadkii jaa'irka ahaa ee caalamka ka dhisnaa in loo isticmaalo culimada loo isticmaalayo ducada oo lagu diro oo lagu cabsi galiyo طيب wakan soo tilmaanay qaar kamida fataawidooda in ay tilmaamayaan in dadka ka ra'yi bedelan ayaga ay u isticmaalaan laamaha amniga oo dawladaha u isticmaalaan nuquusheedana waa naga soo guuranay hatta kuwan muxuu ahay caalam islaami ka taliya kaliya ma حتى كوي قال لها أي ليه نحوها هاي دلنيردي أي كلا تلينيان كلا شقية سيد الله سوق قبل الله مركي علماء دين تودي الدعاء دي هوا كان رأي دوانا مركي الدولة ده هني أنظمة نو استعماش نيكو علماء ونقونا دعوة ودي ميل حبسة وإسكاك حبسة ميل حلو حبسة كوتشرة ميل عرارة أو ميلك لكرنحو اللي فيه سلا عرارة waxaa marka salafiyiintu sida loo ogyahay dhanna waxay kaga eedaynayaan waxay leeyihiin nimankan dawladaha in loo tago ma ogola dawladaha in loo galo ma ogola dawladaha in la shaqeeyo kaleeyihiin dawladuhu inaan salafiyiintu u tagin warba kama bahayaan baa waxa ay sawirmatay madaxdii oo yaaban nimankan la leeyahay waxay idin soo sheegaan oo idin soo gudbiyaan oo inaan aqoon xagee ku nool yihiin wanaadaha kuwa Soomaaliya hatta inaysan wax badan aysan naga ogeyn salama wata gale
cidina warkama ba haysaba tayo moogta danahooda ku mashquulsan yahay anaguna dacwadeena ayaanu ku mashquulsanna wuxuu yiri sheekh Umal intaan radigan wada wax cusub baba soo baxay waasi maxay yihiin awal waxaan haystay wadamada islaamka kaliya inay ku diraan culimada hatta gaalada ku diraan waxaan doonayaa inaan qodobka ka daba geeyo waxaan moodayaa markii hore in dowladahan la hoos joogay caalamka islaami ka taliya kuwa kaliya moodaya inay masaladu ku saabsantay laakiin waxa soo baxaysa inay xataa dowladaha gaalada lagala shaqeeyo arinta iyada ay meesha ku jirto intaasi si caam ah waa jaasuusnimada caamka salafiyiinta dhan meesha joogan si caam ah taas u qaybinay niman shaqada haya dowladaha jaahiliinta ka sii gudub gaalada waaweyn ku sii dar gaalada waaweyn kuwa ku sii waaweyn yuhuudda iyo mareykanka iyo shaqada u qabto oo dadka u jaasuuso oo hatta gaalada inta ogaatay ay leeyihiin warnimakaas halala shaqeeyo oo hala taageero qaarna ay bajeego saxsaxdaan quurinayaan oo shaqadii ay haysteen niman u hayaan hoos buu u dhaadhaca laba sheekh buu si gaar ah uga calaamadiyay inay tawaasiis yihiin waa sheekh maxamed amaan aljami nin caalim ahaayo nin salafiyo saaxiib i'tiqaado cilmi ilaahi siiyo doctor ahaayo jaamacada islaamiya ka ahaa mudaris kutubtiisa hadda maktabada kutub badan baa inoo taalo kutubtiisa kamid ah kitaab dhanka waliba sifaadka iyo shuruuxdiisa tawxiidka uu ku leeyahay qawi weey anaga dalabada ugu naseexaynaya inay maaragtay dhigtaan min aqwa الناس weey fi hada albab sheekha marka oo mootan oo xilli hore ayuu sagaashameeyadii dhowr iyo sagaashankii geeriyooday sheekhaas ayuu wuxuu sheegay inuu wadaadada ka soo horjeeda uu dawladaha u sheego marka waxa la yaab leh muxuu xujo uga dhigay maalinka hore wuxuu ku andacoonayay sheekhu yiri sheekh Umar ilaahay dhowree dambigiisa iyo keenaba Allah dhaafay wuxuu ku andacoonayay waxaan salafiyiintu ka ogeyn inuu ka ogyahay marka dhagta la wada taago waxa la bal wuxuu sheekhu ka sheegay saddex xujo buu kan sheekhu oo ku tusayay yiri inuu wadaadka si jaasuus yahay xujada koowaad waxay tahay waadaan u tagay annagu dan kale oo dawladda inuu wax nagala dhameeyo dawladda Sacuudiga iyo waxaas inuu arrimo nagala dhameeyo ugu socon markaan u tagay wuxuu noo sheegay biyay soo inuu boqorka Sacuudiga laga celin boqor Fahd Malik Fahd markuu rabo u galaa baan u galaa waaya taas waxa ku tusaysaa wala markoo wax xujada koobaad ku tusaysaa inuu jaasuus yahay saddex arrimood ayaa loo daliishan karaa inuu sheekhu dawladda uu isticmaalay nimankii ka soo horjeeday midda koobaad Sheekh Amaan Jaami عليه رحمة الله مالي ما نتقن الله كلنا أنا يرك له تو أرض ذا كم إذا جامعت وهذا النول كذي بنوحان أقول سعني أريم مركز دعوة كوساب سنة ديجامة الصومالي ذا ميت كم إذا إنه نجا كالميو وما دام الدولة دو لندولي مركز مالي كايسجا شيخ وحياله النوشة وحكم إذا طبعا هو كفاني وهو نوشة يقول يري أنا شخصيا الردة هي حفيز كملك فهد لا جماعة اللي يقول يعني وحويان اللي كان دونا انقلا اللي كان دونا نوعتها علاقة في عمبولا لها بقرطوية ده شغله وحوي أرجع واحد كورن النهارده وسرونات واحد سرونات مرخاتي خصمنا واته مرخاتنا وفريسه هذا وكليه وحو واحد leedahay wuxuu igu yiri yaani dawladda waa u gali karaay haduu kugu oran lahaa waa u shaqeeyaa hadad xataa nooga soo naqalin lahayd waan u shaqeeyaa dawladda oo jaasuus baan u ah oo xataa way iga codsaday aad oran lahayd oo niyow jaasuusnimada iyo meegala shaqeynaysaa igu yiri aad oran lahayd kama yeelnay way adigu khasminada markhaatin ma galo walageed yaa leeyahay miyaa aragteen qof u eedeysan yahay oo eedeysanihiisii inta ku soo eedeeyay eedaasan u haystaa markhaati keen markii la yirina maxaa xujo haysataa yiriin ana ka maqlayay raatu waa takhasmi baa tahay muddaci baa tahay muddaci albayinatu ala almuddaci muddaci asaw muddaci cadayn kuma soo darsan kari waxa adigu maqlaysa cadayn ma adigu muddaci baa soo taama marka ay sirroonaan sheekhu waa sirroonaada wuxuu noqday khasmigi horta waa asagu maxkamadda soo saaray markhaatigiina waa asaga ka maqlay sheekh hadalka qaadigii fasirayay xujada وقضية أنت حجة فهمي وفسرها هي وإن لا يقعد واسق حكم كنا واسع يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم خصم يا حكم لا بدي واسق شو اسمه إيش المرك توغط قوب كلا بدو حوي دولة ده إن لوجله يا ملح إن لوجله يا إن ملح لا فريستو جالس سنما ما أنا كذا لا ناس تبضنا كل دوان باوجلا
dana kala duwan baa loogu galaa madaxdu ummad baa u joogta ummadaasoo dhan jawaasiis baa la joogta wasiiraa la shaqeeya culamaa u tagta caamaa u tagta tujaar baa u tagta dowladdan u tagi jiray ninkii yidhahda madaxweynahan saaxiib la ahay oo xataa saaxiib ay sheeka wadaag yihiin oo habeen kasta war xagee joogtaa soo wacan oo waqti baan haysaa kaalay shaahan wada cabna ay yidhahdaan taasuus ma halkaa markaa qodobkaasi macno ma leh haddii macno loo yeelana sheekh umal ka badbaadi mayo asagaa u faruuran wadaadada soomaalida ah ragga ugu badsada inay madax lala kulmo ama loo tagaba ka mid yihin haddii la iltizaamo qofka waxaan ka rabnaa ictisaam iyo sheekh umal iyo inay ogolaadaan oo yidhaahdaan waa aqbalna sallamna inay yidhaahdaan hadday tasliimisaan in madax loo galaahi ama boqor loo galaa ama boqor lala saaxiiba ay jaasusnimo noqoto qodobka haddaad iltizaamtaan annaguma iltizaamayno idinka ayaa lamarka koobaad noqonaya sheekh umal ayaa markaasba soo boodahaya qodobka labada u daliishaday waxa weeye wuxuu yihi sheekh cabdikariim baa wuxuu yiri biye sheekh cabdikariim xasan xoosh sheekha salafka ee caalimka ee caanka ah baa wuxuu yiri biye niman uu sheekh maxamed amaan jaami radin jiray safar iyo salmaan la yiraahdo safar iyo salmaan inta waa niman dawladda ay xirxirtay dawladda sacuudiyiina inta aan dawladdu ku baraarugin baa soo ku baraarugayo wuu radigiisii baa lagu baraarugay wuxuu reerigiisa asaga ku baraarujiyay buu arinta saddexaad ee tilmaamaysa waxay tahay waa arin iyadan aan ka helay sheekh Soomaali ah culimada Soomaaliyeed kamid ah oo isaguna ka sheekeynay arinta iyada waliba ragga fikirkan qaba kamid waa Sheekh Cabdilkariim Xasan Xoosh ilaahay tabaaraka wa taala xifdiyo khaatamadan Allah u hagaaji Sheekh Cabdilkariim Xasan Xoosh كلمة لي حفظه الله تعالى كلمة داسي ما قرنا ما هدو تشيدي شيخو ما مرهرو تشيدي وعلى الشيء شيخو يونس السنة عندما هلين لكن مركي هذا عن كلمة دي تشيدي كلمة دي قابنا دي فتوى ده هاي هذا الكيسود موضوع يسألونه كجت شواب يا وحال السوق لي يا الميديا على السوق لي مركما كوهرو شيخو وكهالله ومسايش كهالله يسوق قاعدين بمسي sheekhu haduu ka hadlay ma garanay Allahu a'lam laakiin hadalka gudihiisa waxa ku jira kalimadan aan doonay hadda inaan idin sheego wuxuu leeyahay sheekhu way jirtaa buu leeyahay inay dadka qaarkood qaniineen sheekh maxamed jaami si gooniya u qaniineen maxaa yeelay wuxuu ahaa ruuxii ugu horeeyay baraarujiyay saruuriyiinta ama saruuriyada waxay u yaqaanaan raggii markaa ka soo horjeeday in hadda magacayahooda sheegay safar iyo salmaan iyo qoladaas ay saruuriya dhahaan waa magac iyagu u bixiyeen marka wuxuu yiri saruuriyada ninkii ugu horeeyay ku baraarugay buu ahaa wuxuu leeyahay intaysan culimada kale ku baraarugin buu hortood ku baraarugay sharkooda markaasuu ku qayliyay sharkoodana fatasho soo saaray kadibna wuu baahiyay wuxuu ka digay buu leeyahay fitnadooda saasayna sheekha ula xulloobeen waana mid sababtay buu leeyahay inay gacan saaraan sheekh oo ay garaacaan asagoo oo muxaadara ku jira waana mid sababtay buu leeyahay sheekhu markuu dhintay oo xanuunka faalijku ku dhacay saruuriyiintu qaarkood inay yiraahdaan ilaahay dartii baan u sujuuday shukran lillaah inuu dhintay maxamed amaan jaami waa mid keentay buu leeyahay arinta iyadaan markaas wuxuu leeyahay sheekha wax kale laguma haystee sunnadu u gargaaray sharka qoladaana uu ku baraarugay buu leeyahay dadkana wuu u warramo uu sheego wuu ku qayliyay qolada iyada wuxuu leeyahay xukuumadana wuxuu ku baraarujiyay fitnadooda imaan doonta halka way meeshan ka wajin fitnada ay soo wadaana xukuumaddu ku baraarujiyay laakiin wadaad muxaadaraad jeediye baa lagu baraarugay oo dawladda iyo cid kale ba cidii doonta waa lagu baraarugay baraarugu ma ahayna jaasusnimada raadinaynay sheekh cabdikariim baa iiga markhaatiya hadda tiri waan xayu yurzaqi inaad keentid baa la rabaa asagoo oranaya ama markhaatiga furaya inuu sheekh maxamed amaan jaami jaasus amanaada keenin erayga meesha ku jiray baa la soo baxay adaana fasirtay oo macnaystay baraarujin buu ahaa jaasusnimo ma ahayn adaana jaasusnimo ku fasiray isla arinkaas in qofka hadalkiisa wuxuusan taxamuli karaynin aaminsanayna laga dhaliyo waxaad ku sheegtay diin xumo waxaad ku sheegtay warac xumo waxaad ku sheegtay liidnaan xumaan oo dhan baad ku sheegtay in ruuxa hadalkiisa la leexiyo waxay daliil u tahay warac yari iyo amaano xumo
أمانة علمك وحي كينيسا روح هذا الكيسا سيدا الصحدة وصعد انت أدركته كدبنا وحي كالق من كره لكن إناد معناها اللي يسو تحريف يسو وحي كم تهي وحي لها روحة ورحيسية أمانة ديسية تدين كيسا داوعكوا حي لي هذا الكي معنا كلو صوب حياة فهم كلا كي مانيا ضد كينا وحكا لي أقادنيا الشيخ اللي يلاها الشيخ عبد الكريم ما أمن سنة الشيخ محمد جامعين جاسوسي هاي محاضرة أسهرانكم أقران هذا أنا وأمل يهي ويدية إنه أمن سيهاي أما مرخاتك إياه أولا إرهي سمحات أتشيدا أنفسر كيسا ويدين بعد محاضرة الله صفر لسات صارت ما أفسرت إن خوفك وقت يسأل يقول له عيو سيدي ربالك إسكا فسرتنا أحكام تأساسيس هذا مركا حقوم أرهن كاغان محانو سينا انت أولا في الميش قولوا بكسد حاد جاسوسي لماذا وحو تشيستي الشيخ اللي يلاهدو الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله تعالى باوحو يريبيه انت أماني الشيخ محمد أمان جامع أماني بوحي لنو ونكسن بوهايو دولة إنه أنفعو الضمعي ونسيحي إرقا أفرسو الشيخ محيل ونسيحي أرهن بان ونسيحي بيو ونسيحي الشيخ أمل وحي أرهنكو ونسيحي جاسوس لماذا يحي معلومات اللبات وتلمام يسائنو الشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله إنه دولة أو استعمالي نمان كاسو كدعوي إيضا وحات المامية أحد كبار العلماء في المملكة وأنك ليلاهدو الشيخ صالح اللحيدان من أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء هيئة وين علماء السعودي قرقي وريو كمدي ورئيس القضاء الأعلى محكمة أوصل رئيس ودن كان إسقى الرئيس كأحمد محوليه الشيخ صالح اللحيدان محوليه محمد أمان الجامي يكهل يا الشيخ محمد أمان الجامي محوليه نعم الرجل إلا أنه مسكين أراد أن ينفع الدولة فيما لا يعنيه وقد نصحته بعدم التدخل في هذا مسكين بقول نفع عن بوهابول لكن دولة أنفع بو إسيري مركاسو وحو قلي وحان دنتي ساهين وانا نقرنا السيحيي بوري انو سرهو شاقلين يا دهية شيخ صالح اللحيدان يعني وحويان وحو قلي وشيخ الشيقي وحوي وعلاقات كاتوسكا إيو نوع لشقين ودولة أول حقلين بانكو يريبور سونا شيخ وانيات في عناية الدولة أنفع بيسيري ودولة محوها هاي دام محوها هاي وحكو بيري أو وحتربو إصلاها وسو شيخ شيخي كدبنا الشيخ صالح اللحيدان هذا الكامركو يري وحو تسكييو أماني شيخ محمد أمان عقيدة ديسي صلاة ديسي عبادة ديسي ننفي عن بوهابو لكن أرن كاسون أقولنا السيحيي بوكو رعيبو كدبنا وحو رسيدها صوكالة شيخ ربيع المدخلي بوتلمامي يا شيخ ولو يعني واحد لك قفك إنه يعني غالبا مركو قف دين وصاحبه وياهي نن علماء هذا موطن آخره وظهر حتى قفك دون لي يعفي بأوران كنا مكت أتكهل ليس أرنك يكون سابسن تاينا إن يعني احتمالات كسرة سلسلة فسره شيخ رئيس ودوبية ما أران شيخ واحد قال لي لا جاسوسني وقال نسيحي هذا كفسر وتحكم جاسوسني ماذا يعني بايح أنت مركو ولادك كسو قد بي بوحي الشيخ ربيع بوسو قد بي الشيخ ربيع أنا وحي يري هاوشي بيو ماشي كسي وديبي أرنكي معاه هاوشي يا ماشي كسي وديبي شغالي الشيخ ربيع شغالي إن dadka loo geeyo dawladda iyo in la jirxiyo iyo in adigu masaa'il uu sheegay waay inta markuu ka soo gudbay wuxuu soo dhaadhacay wadaadada Nairobi tagay 8-7 meelaha yani isugu yimid dawladda ama Nairobi gudaheeda ay yimaadaan laakiin rag wax jeedinayay ama meel safar kale ka yimaadaan wadamo kala duwan iyo deegaamo kala duwan ka yimid wuxuu yiri nin jaasuus ku jiray haddaan se sheekha wax yar ku baraarujiyo raggan uu sheegay sheekhu intaan aniga ka aqaan qaar kamida نشاط دعوي أو لغوية قانو ما جرو وصاو أماني قار كم ذا ضائفة دي سلفتي سابا بدعكو حكمتي أنا جماعة صوما قار كم ذا شخصيا أقانو ما يحس مرة بين الشيء ولولا أنا كبقي إني فيدنا راح يسوون شيء لها لكن قار كم ذا أقانو دعاء يا مراكز التعوذة تقارير تدي الريبوت كودا waxay u gudbiyaan dawlado oo la shaqeeyaan sheekhu ma yaqaan
وأنا مقعابي لهذا كبقين في النوم رجع الشيخ وحوليه ورع عوضة وما دورنا بابا تقان وهذا ما كتير من تعصص أبو كتير الدولة ده هربودي وقتية يعني وفلان تعيرك الله توري نك سوف لا وايه عدين أمكينين بيجي سمش شيء يعني وواحد لا بعيني نك سواء قال ماوي إنه تعصص وشيء يوم نقضه حل يرهدو كل وقتهم علامة سؤال بدوش على قصار مركز سداد بانين معاكو علامة سيهين نك صوص وقالها يد وقال ما إنه ياي كي تعصص كها إنه ياي وايه انتهى مركز وعندك واحد تعصص لماذا كصابسن هل كان يصادق أرنك مركز يسقى واحد سويدي مسألة اللي اسمها هي والله جوا هاللينا أول بان هراء الشاقي وواحد هاي ده حزبية اللي اسمها هي واتين منين وبنان تاي ما بنانا قلب كاسوا صدق قلب كل اسمها هي ولا ليا قلب كاسوا ولا دني يروي بتشوجه شيخ أمل ين أربع جيسان اللي يلا حسان عادة وحوا والواحد جاب له طبعا عجيب يكسو كل دي ولا هذا الكوداد ولا قد وداد ويسسور دي أنا بحق اسكور دي أنا باطل اسكور دي يعني waxay ku soo kordhiyeen dhaqan Soomaali hore u aqoon wadaadada Soomaalida Suufiyo uma laga maqal jiray dhaqankaas oo wadaadka waa taasoo gaalada u shaqeeyeen fatwada Sheekh Umar uu ka soo saaray waana la isku laaya dadka jawaasiista lagu tuumo oo dawladda u shaqeeyaan ururada dadka laaya ama dagaalamay waa dilaan shakil aan weey soo moogid waa dilaanay qofkay waxa ku tuumaan ama qabtaan ama ku waa dilaan fatwadan Sheekh Umar midba ka horeysay waa midda حسان أرديسي كسر صاري نيروبي أو إنه وذا كتومي إنه تواسيسه قارب ذا ولا قارب مساج كجدي سيو كتيره ما راح لقى توكت شو قم الله وصار مد الله مد بصار وأما وخص خطر روح الجلية إتكسر الثلاثي أخطر بجلي سجارة نسداد وذاد يا خطر بجلي فتوالى وصاري نتيجة يوم بالسكتة وحل السكتة وامحي والنتيجة دي وحيلة تيهلا يا قرابة وذا دس أن الشيء عدة كل حشرته يتعصصك عدينا أن لو كينين وحي طبعا أما كيما هذا باش يودون الله إنه يقانن بيلات يعيد كلا حال الله إنه جرنا يام بيلات ما هذا قفكم إنه صورها وكلي أنت سجاه الله يقول هذا دتكاس جواسيس ولا سلينا يا ولا كذا كل علماء لو قد يقول الله أن جاسوس باتهاي إن ليس عاية جواسيس باتين يدخل علماء ما وحلوه الله علماء لو قد ده ولا يقانن قفكاس واخلديه هاي ومبتدع حتى من مركز تكفير وضعه وده مسألة قفك مسألة دينية أبو كفرية لكن ما الأول يا دولة بوشقية دولة وشقية أنه ما أمن سنين حتى هذا يدعوه إن بدك قارك الدولة وشقية أنا أوجيان السبب كوكوبانتاي إن دعوتنا لقوا عميمه أما فرقدنا أم حزبنا أم أردنا أم جماعتنا لقوا عميمه ما أمن سنين بل سه قواعدنا أودتشيي شيخ أمل أودتشيي إيه دولة بالله قلي وتواسس نمو حلبة مخابرة اللي قبته وتواسس نمو أرنك إسقى waxaa soo baxday ilaahay amalkii jamaacadii uu difaacayay ee uu soo istaagay ee xisbigiisii Sheekh Barbaraawi iyo xisbuhu mufaddal baa waxay noqotay jamaacada meesha ay dawlad in lala shaqeeyo ama mukhaabaraad la noqdo heerka ugu sareeya ka gaartay wax kula tartami kara ba wala waay afraad iyaga ka tirsan baa waxay ka gaareen heerka ugu sareeya mukhaabaraadka heer federaal iyo heer dawlad goboleedba waxay uga gaareen maxay meesha ugu sareysa waa jamaacada kaliya ee u heer dagaalama qaarkood walaal caano iyaga kamid inta qabteen ku maxkamadeeyay jaasusnimo oo uu qirtay runii been waxay ka taaba garan karaan laakiin hadii tuhun iyo wax la soo barbaarayo oo uu qiray oo uu yiri aniga waaba laga garaada sarreeyaba anigu waa sax waa ku jiray laakiin ragga jamaacadaas rag uu sheegayo oo raggaan rag iga sarreeyaba jiray buu yiri waa jamaacada kaliya ee Mareykan cadcad maraakistooda kula shiray oo ka codsaday inay la shaqeeyaan ayaguna ogolaaday YouTube-ka ku jirta Sheekh Umar baa laga bartay YouTube-ka la soo celiyay xageey ku jirta YouTube-ka ku jirta waa jamaacada kaliya ee amiirkoodu dawladda uu meel u degan yahay oo ay ku wardiyaysato oo waxa kan leeyahay anagu jamaacadka kale amiiryadooda dawladda iyagu la degan ma arag bal jamaacadii dhammaantood dawladda la deganayd way waxa la dawladda looga jawaasiis balay soo dhaadha Sheekh Umar soo ma qaacida ma dajin dawladda loo galaahi waa jaasusnimo waa ninka ama sheekha gaali islaam ba u galay madax gaali islaam wuxuu galay farmaajo oo la fariist internetka ku jirta Mustafa Aksar madaxweynaha dawlad deegaanka waa ku jirta wasiirka gaashaandhigan ku ogaa aadan barre ducaale ee Kenya waa ku jirta asagoo la jooga waayahay safaaradda Mareykanka asaga sheegay inuu galay midda Norway buu sheegay inuu galay waayahay danban ka yeeshay ayaa adigu aad marka u gashid danba ka yeelatay dadka kale markay galaana waa jawaasiis insaafku iyo cadaaladda meeda adigu tii Mareykanka inta gashay dan ka yeelatay ninka boqorka Sacuudiga oo jaamacadiis adigu ku noolay day hadda wadaadadan Sacuudiga loo shaqeeyo waa nimankii Sacuudiga soo korsaday
sheekh umar 4 sano jaamacadan ku maqnaa jaamacadan dhiganay jaamacada yaalaha horta jaamacada yaalaha walaalayaal jaamacada sacuudiga laha lacag laan bay ku dhiganayeen birina sugunta teerso baa la siinay qadiya quraac iyo cash baa la siinay bishu markay dhamaatana xoogaa sanuuya jeebka loo gelinay miri iyo mukayfiye magaciisana waa deganaa meel ma aragtay inuu mukayfiye inay ku xiran yihiin war kama hayo laakiin kullay sacuudiga waa kulul iyo mukayf waa iskilayaan isla halkaas deganay shaaween bay ka soo qaateen qolada halka aqoonyaha halkan jooga bay rabeen inay ku aftirtaan doctor hadda doctorka isfaanayo ku hayay waxaan sitaa PhD doctor baano doctor PhD gaari wata baa nin ku yiri war soo fuulay waa diiday markuu salafiinta eedeynay nin salafiyaan ku yiri baano doctor gaari wata tasoo afur mar hadda doctor tay gaarina wadatay yani خلاص gaariga ninkii diiday waa khalaaq xun dhowr iyo 10 sano buu deganaa ay biilayeen sacuudiga oo wax barayeen oo soo siiyeen oo shahaadada aan hadda ku faanaya soo siiyeen oo xataa marka reerka iyo caruurta iyo marka dambe waa loo raraayo waa loo biilaa warnaka idin soo korsaday weeyna marka sacuudiga annaga wax shaqaad waxa kan la yiraahdo salafiyiinta badankood hadda salafiyiinta waxa kan la yiraahdo hadda doodaha ku jireen kulligood kama ay soo wada bixin laakiin salafiyiinta caanka in yar baa sacuudiga tagtay sheekh cabdikariin oo sheekh caalimka yani jaamacadaha sacuudiga dama dhigan mana aadin sacuudiga wax midna kuma leh haduu xajii umro u aadan asaga tigidkiisa goosta kafaalana ma siin qaar baa kafaalo la sii oo biilay sacuudiga wala hada u biilaya doctorada meesha ka soo baxay marka sacuudiga nimayo hadii ay noqonayso sacuudi oo cuntadiisa la cuno in la baayo haday noqonayso idinku idin korsaday marka sacuudiga waa nagu xulxinaya halka yeeman baa nagu kama nimidba ayadana sacuudiga kama jirin khubus baa laga cunayo waa la soo arka Soomaa marka meesha kabs warba ma bariiska laga cuni jiray kabsaan ma laynay la oran jiray magaciisa ma meesha cuntada laga cuno xagga weey hadii cid sacuudi u shaqeyso nimanka uu soo afkaartooda ku soo shubtay soo tababartay soo magaciisiyay waraga u tagay jaamacadaha kala soo baxayay laakiin jaamacadaha sacuudiga meelaha cilmiga laga soo qaatay waa weyn bay kamid yihiin ceebna uma aragno dambi eedna uma aragno dambi maaha sheekh umar inuu sacuudiga wax ku soo bartay dambi maaha yan la fahmin inaan anigu eedaynayo jaamacadaha sacuudiga in la aado qiblatul ulama baa loo iyo qiblatul muslimiin ayadoo ah hadana de waa meesha culimadu ay aadayeen way isugu imaanayaan waa tagaan goobaha waa weyn qofkii fursad u helay wax ka soo barto culimadii baa joogtay muslimkii baa jooga wax ceeba ma laakiin in la isku aftirta baan diidanna waxaanu diidanahay in la isku aftirto halka marka arinka isaga ahi waa arinkii ku saabsanaa wuxuu ku saabsanaa jaasusnimada qodobka iyadaahi waan ku faagtay waxaana ugu balbalaariyay waa tuhmo macna daraa tuhmo waxa weeye macna daraa tuhunka marka macna daradaahi inaanu meesha ka saarno muhiim weey qodobka xigaahi sheekh umar ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigeena iyo kiisaba ha dhaafo hana wada hadeeyay wadaadada khilaafsan jaasusnimadii ka sheekaynteedii waa la sixil dheeraad wuxuu isku dayay oo uu la yimid inuu yiraahdo shaki geliyo wadaadada iyo masaajidada wuxuu sheegay suldaanka Israa'iil inay masaajidda ku jiraan wadaadada garar waaweyn oo masaajidda tujinayo quraanka akhriyayo oo suldaanka yahuuda istirabiyo xataa wax kale iska dhaaf muusaadka Israa'iil yaa xataa shaati wadaad idin soo gashanay salada hoos ka xariiq soma ogadin magaalo yani Tel Aviv jaamacadeeda waxa ku taala qayb dhan oo muusaadka hoostaga oo jaamacad ah oo lagu baro dadka barta waxa ishraafo gacanta ka hay muusaadka Israa'iil ba gacanta ku hay waxa lagu bartaa diinta islaamka iyo luqadda carabiga waxay ku takhasusaan diinta islaamka iyo luqadda carabiga ya muusaadku waa sirdoonka Israa'iil kulliyadaasi ama jaamacadaasi dadka ka soo qalin jabiya oo luqadii carabiga ka yaqaan oo shariicadii wax badan ka yaqaan caalamul carabi baa loo soo diraa ayagoo gar waaweyn oo wadaada ah yeeyna tujinayaan quraankana way ka badiyaan wuxuu dul xulaya rajib wali u dul xulaya soo hatta khayr ay dad sheegaysid Israa'iiliyiintu waa baran karaan laakiin sheekhu wali waxaan u sheegaynaa tuhmada hadii Israa'iil iyo Mareykan adiga safaaradooda daris la masaajidkaaga iyo masaajidda u dhow baa kuwaas daris la laakiin ka laazim mayso tuhmadana waxay la tahay waxay haday cid dhex galayaan waxay ka soo bilaabayaan ragga u dhow bay la tahay taa marka waxa kan la yiraahdaa tuhmadaasi tuhmo qiimo leh ma waana tuhmo halis ah oo ducaada oo dhan dadka laga shaki geliyo oo kaliya aan ku gaarahayn salafiyiinta oo cid kasto loo cilqaba cid kasto cilqabtaay ay ku tuunto daa'ifada kale ay tiraado war ma haystaan garka warqadayso وموسادك
سلبونك يهودا بقى يا معي موساد انت مركب الشيخ عمر isdaba dhigay muslimiinta gaalisi wuxuu yiri islaamka dhabarka ka durayaan islaam ma muslimiinta islaamkii bay dhabarka ka durayaan hortii gaala iyo islaam xataa ishayaan inay islaamka dhabarka ay muxuu ahay ay ka duraan mooyee wuxuga xataa wax weeye war ka xishooda xataa marxaladan waa marxalad laga xishoon lahaa xataa ma jirto yani waa ragii odayaashooda ahaa waxaan ka hadlay ee tasriixaadka bixinay qofkii islaamka duraana waa gaal sooma islaamka cid wax ka sheegta muxuu sameynay gaal waxa laga yaabaa inaad tiraahdo waa ka laaziminaysaa muslimiintu u jeeda ha wal wax baari kara laakiin shaqo malba wadada soo xiray oo ilzaam kaygaas aniga ilzaam kaygaas waa ilzaam hal darajo islaamku duray qofkii islaamka duraana waa gaal sooma mid kasi dhowr talaabo la qaadayo buu ku laazimiyay inay salafiyiintu gaalaysiinayaan khusumtooda oo tawaafta qaar qodob wuxuu ka sheegay inay yiraahdeen salafiyiinta duraan qofkii salafiga duraana waa qof islaamka dura midkii islaamka duraana waa qof gaaloobay sawa marka saddex tilaabo ama laba tilaabo buu soo qaaday aniguna hal tilaabo maxay baan qaaday waxa kamida waxyaalaha ay ajaa'ibkay mukhalafaadka lagu tilmaami karo cidii khilaafsan in ay ku itlaaqaan itlaaqaad laazimkoodu uu gaalaysiin yahay لأن غلوه باب الأسماء والأحكام وحل إلى هذا غلوه قال له سميه والشبهة الغلو في التكفير والغلو في التبديع والغلو في التفسيق والتضليل تشابه بكذا حياة الفاظ مركا استعمال يعني مخالف كوضو استعمال يعني قار واحد شرع أي كم وقته إنه جالسين يعني وحكم إذا مثلا هذا الشيخ ربيع المدخلي وليه هي الإخوان المسلمون أخطر الفرق على الإسلام وهم أضر على الإسلام من الكفار الواضحين إخوان المسلمين كوحها مسلمين كوا إسلام كأقدرون إسلام كوا يقدر بديهين قال هذا عد قال هذا الرسمي قال لي ماذا عده مركا لو حليه أنا والله أقول بكل اعتزاز هم أخطر على الإسلام والمسلمين من كل أعداء الإسلام وهذه آثارهم واضحة أنقول إلهي بنقول دارته وحن ليه بكل اعتزاز إسلام كي المسلمين توي أخطر بديهين قال هذا طيب سؤال بالسويدين كرتان مركل وحوله أشد على السلفيين من اليهود والنصارى وأنا صومرني ميلا هذا الله يسكو يالا سؤال بعد مركز السويدين كرتان معها مسلمين تماه ودينتي إسلامك على الإسلام دينت إسلامك روح الشيغانية قال هذا اليهودي النصارى أقدرا ما مسلم بقى ما مسلم هو دري ما روح مسلم يسكت عن ما كوح مسلم يسكت عن ما ودينتي دينت إسلام كروح يهود أقدرا ونصارى أقدرا وقالوا أقدرا وديب كيس أقدرا سي مسلم كويه لأنه وحنا قانا يهودي النصارى دينتن إني تشرتوا مقبان إني بابا قبان dadkooda laga takhaluso iyada la dirtiro aynan jirin mar rumaysna ka uga daran kuwa ka sii daran ka waran markisay xalqiyo sabiya mowqiciisa xagee waa hada hada xulus waa lawazimta hadalka waxa kamida oo ka muuqda in ikhwan muslimiinku gaaleeyeen min lawazim dhalika waa ما أدري إذا كانوا يلتزمون أو لا يلتزمون لكن ولازم القول هاي روح كستو إسلام كأقدرا قال هذا كلا أقدرا ظاهر كوينه قال يه هذا مركا إلزام كيسو ونقبته لا أقرأه إنه إلزام كاشيغو كنا كده وقال وأين هذا دو سلفيين تمحي قال يسيسي كل كي آتلي إسلام كيه دبركا كتم ماتيا كجدو شيخ عمر خصومتيسا وحن كولا رجع سيان أيوة محي بلاد وقفت وحير الجامية وحير المدخلية وحير الجديدية dadka qaarkood waxaan rijaamiye u yaqaanaan qaar madkhaliye u yaqaanaan qaar salafiye jadiid ay dhahaan
iyagu laakiin waxay isu yaqaanaan oo isku tilmaamaan as-salafiyya aywaas ayuu waaqiiba yaxan dikruka akhaaka bima yakra wax bila cadana waa nabid waa masabidash waa hafrid waxaad rabtid ku sheeg markaasuu wuxuu yiri dadka u yaqaan anigu ma oranay dadka u yaqaan Soomaaliya waxay yiraahdaan waranka ninka kugu dhuftay kan kugu ligliga ka baran kan kugu ligliga maqiil bay kugu soo noqonays tan kale qof inta uu tagtay ogtaamiyo dadku tuug baatay ku yahay anigu wada kuma oran tuug ya daalan baat anigu wada daalan kuma leeyahay la soco sheekh barbaraawi hoos baa la soo caayay baasha la soo disinaya ko teeda kale qof culuma oo cirdi qof dadku wax ka sheegay waxa dad qofka day hada qofka ka aaminsanta waxa uu ku sifaysan yahay khalaas leh oo hadaadan aaminsanayn qof baa yiri maxaa u soo qaadays qof culuma baa tahay hadaadan qofkan ka aaminsanayn waxa inuu ku tilmaaman yahay maxaa ugu soo qaadanays hadaa aaminsanta inuu ka tilmaaman yahayna maxay macnaayo sameynaysaa anigu kuma oran anigu kuma oran dadku dadka qaarkood markay rabaan waxa ama dadka maartay ay afgalaadsan wuxuu oranay tuug baa tahay ku oran mayo ku oran hada ku yiri wuxuu kale yiri aqligooda wuxuu yiri waa qaab nacasnimo bay u dhaqmayaan nacasnimo laakiin qaabkan nacasnimadu ku jirto ee faham xumadu ku jirto ee ay u shaqaynayaan ee ay u hawlgalayaan ayaa wuxuu si ahaantiisa si automatic ah wuxuu u waafaqayaa qaabkii reer galbeedka iyo Israa'iil iyo dawladaha gaaladu rabeen culimo waaweyn rag waaweyn rag mootan iyo rag noolba intaba leh oo islaamka u soo shaqeeyay inaad tiraa waa nacasnimo waxoodo iyadoo ay kala weyn wuxuu yiri waa koox ariya waa qatiic soo qaatay Sheekh Bakr Abu Zayd asagu yani toos asagu cidna ma magacaabay laakiin kitaabku sifaad buu sheegay marka wuxuu yiri wadaadku wuxuu yiri waa qatiic biyo waa qatiic Sheekh Umar wuxuu yiri isagoo faxfax ah markaas wuxuu yiri ma taqaanaan buu yiri qatiic waxa laga wado koox ariya weeye sheekha lixaad waa Sheekh Bakr ابن عبد الله أبو زيد أحد كبار العلماء لجنة دائمة للفتوى أنا كم ذا كوح ذني قطيع وحيوة قطيعة ولا على الحين تاريخ حين تريبوليه أعراض يعرضك بني آدم ككو كسو دولة كو قدران واحد شيء ولا ده السلفيين تاع صومالي ده وقت وحبا كمان سوق هذا لكن عربته كلمة وحكا سوق هذا نيو واو بلطي وحنا ما أفعل ما wadaad waxa kale yiraahdo hada sheekh muqbalo kale wuxuu ku haystay inuu ku yiri baqarbaaw waa kalb alcaaw eega waa wahleeynu ku yiri markaas ma afcul ma waxa uu soo xumay markii salafiyiinta lagu yiri koox ariyana wadaadkii nuurkiisa waa baxayaba qatiic koox ariyabi waa gart intaasoo ay marka sheekh umal isku soo dibrid aniga maxaan taariikhda uga sheekeynay oo soo bandhiganay waxaan soo bandhiganay inaan udiin sheego muxaadaraadkan aan galayno waa mukrahun akhaaka la batal waxna loo hanbeeyay ma jira waxaan oran karaa yani Soomaali waxay qofkaas boqolkaygu galay markay yahay Sheekh Umar salafiyiinta boqolkoodu galay meelan laga soo celin karin garto haduu ku gaabsan lahaa labada mas'alo ka hadli lahaa xisbiyadu waa banaan tahay ma banaana xisbiyaatiin waan nahay manihin mas'alada haduu ku gaabsan lahaa waxa dhici kala qof uu jawaabo laba uu jawaabo xurmada inaan lagu xadgudbin laakiin annagu ilaa hadda xurmadiisa waa loo dhowrayaa Sheekh cid aan u leenahay hadu ku xadgudba ama wax ka sheegana ma jirto waxa aanu sheegaynaa ala sabiil ilzam ma aaminsanin Sheekh Umar inuu jaasuus dawladaha u shaqeeyo u yahay ugalida uu tagay madaxduna maba aaminsanin ba inay tahay ma aaminsankeen maba ahaba aaminada yada kuma xirna ma aha hatta ictisam ma aha arrinka marka isaga ahay laakiin muxuu sameeyay doodiibu sheekhu wuxuu u raray meel aan wax ka soo celin karo jirin garti waa xumay inaan baraajiyo marka waxaan taariikhda uga soo sheekeynay inaan baraajiyo garto inuu Sheekh Umar garti xumeeyay dad waxa jira moogtaan garta loo dirin hadaad maarad gar loo diro ama dad loo maslaxa arrin la isku hayo loo diro waxay geynayaan meesha ugu daran waxa loo yaqaan marka kor u raray arrin baa loo diray waxa loo oranayaan ama nin xaaskiis isqabtay ama la wala ganacsi qabsay warnaaka gartooda gal bahashiyo wuxuu ka soo tagayaa de labada qof oo inay isdilaan ma wax dambe heshiisin kara aan jirin tu galaaba waxaa marka loo bixiyay kor u raray baashi marka sanada u raray sanada marka haday aaday annagu eedeeda maliya Sheekh Umar marka uu waxaas culimada ku oranay oo kula dhaqmayo shaa ugu khadaamayo oo yani misana yani qofkii ajaladiisa dhageystay anigu waa dhageystay waa qorayba hadana dhageystay yani ajiib wuxuu ku tala galay tan alla waa meesheeda inaysan 14 xalqa ka dambeey wax salaf la yiraahdo lagu kala tago ugu yaraan hadaan la layn inay soo ruxmaada
balaayo yuhuud u shaqaynaysa oo sadiiqun liisraa'iil ah oo raandi ay leedahay nimankaa hala dhaqaaleeyo raandi waa mu'asasad ciidamada maraykanku ay leeyihiin ay leedahay war nimankaas hala dhaqaaleeyo ay leedahay oo balaayo aragtay horta nimankaa weeye nimanka uu saas u gala intaa aan anagu markaa aanu sheegnay soomaalida carabtu waxay yidhahdaan man jalla duyuula annaasi jallu dayla qofkii dadka dabadooda fayda qofkii u taga arkaba isagana la faydaya soo maatiis maaha jalla duyuula annaasi jallu dayla halkaa marka mowqifkaas isagaa sheekhu nagu khasbay in la yimaado waxaan kale u sheegaya ictisaamka soo dhababacaynayay 14 xalqo markii waxa kan la yidhaahda ujeedinayay mashxaradda iyo alalaaska iyo waxa kan la yidhaha qaar ka mid ah waxaanu islahaan uu tii koobaad markaa dhegeystay wax islaa gacanta ka qaban doona waa oran doona sheekh cajalada saddexaad markuu jeediyey gadaa sheekh halkaa gelinay bay oran doonaan ku ekow aragta wuxuu aqal celin doonaan maye inta aanu aragnay oo mawduuca ka hadlay waxay alalaas baa lagu soo dhaweeyey waxaan u sheegaynaa dadku day waa idinla wada mid sheekh umalna macsuumna maaha dadkuna dad meel ugu xaraysano suu raba uu ka yeelayo wuxuu raba uu ku sheegayo ma nagu sheegi kara wuxuu raba cidna kama yeelayno xadgudub cidna kama yeelayno qofkii ixtiraam la yimaada waa la ixtiraamaya qofkii si muxtarama soo hadlo ku ekaada masaa'ilka cilmiga waa lagula ekaanaya qofkii yidhaahdan nabid la yimaadana waxaa lagu oranaya hana nabin waa inta ugu yar la oranayo hadda ilaa hadda inta ugu aan leenahay hana nabinina aan leenahay beenyaan la iska sheegin baan leenahay dacaayadda hala joojiyaan leenahay waa dacaayad أبيض الله تيريا الإمام الشافعي محاكم إذا ولست بهياب لمن لا يهابني ولست أرى للمرء ما لا يرى لي فإن تدن مني تدن منك مودتي وإن تنأى عني تلقني عنك نائيا ولست بهياب لمن لا يهابني قفك أنا احترامي هيبد أن إيسا مينين أنك ما هي بيسني ولست أرى للمرء ما لا يرى لي قفك وحا أصن إيه أرقنا وما أرقى سقنا نيكو يري السنان ما إنه أدنا دي تسرينتي السمي marka yani qaabka uu sheekh umal u soo hadlay waa qaab cabiidin iyo ku saabsan inuu dadka dullayn jabin isku day ah laakiin ma isku dayi karo qofna iskuma dayi karo nimanka marka usoo dhababacaynayo iyaguna raba inay yidhaahdaan yani haloo hogto waa loo hoganayo sheekh raggana waxaa kan la yidhahdo waxyaalaha qaarkood lagama doono nina loo hogan mayo sheekh umal wuu xadgudbe si fiican buu xadgudbe markuu yiri culummadaasi waa jawaasiis yuhuud bay u shaqeeyaan maraykan bay u shaqeeyaan dowladaha bay u shaqeeyaan wax xujaa iyo baraahiyana aysan u keenin shaqadii yuhuuday hayaan yuhuuday jeegay u seexatay waxa marka u daldalay wuu xadgudubna nina laga yeelimayo qof nagu khasbi kara ka yeelana ma jiro ka aamusana ma jirto cid aan ka yeelina ka haya qofka hadduu nooga keenaan yani inta u tagaan ay garawshiye iyo ay yiraahdaan warceeb baa dhacday raalli ahaada culum sida wax iga noqdeen haddii hadalkaa ka hadlidda masalada halkaas ku joojinayna masalada kale xisbiga waxaan isla aadayna maxay waxyagii weliga yabaan isla balaqsan jirin waa xisbinimo waa banaanta iyo maxay ma banaana masaa'ilkeennii yaa gaarka ahaadaanu isla aadayna laakiin arrinkan isagaahi halkaasuu tegey waxaa laga yaabaa in la yidhahdo sheekh barbaraawi waa ka hadlay maxaa ugu celis waxaan ugu celiyey inaan mid inta iska soo ordo uusan oran sheekh umal baa la soo maagay sheekh umal waxa la yaab la wey sheekh umalka intaa shubay haddaan iyadoon intaa dadka loo soo sheegin inuu yani khaladkaa sheekh umal galay ilaa macsuum maahe haddaan dadka loo sheegin waxaa laga yaabaa in ay eed nooga dhigaan maxaad isu difaacaysaan miyaa ma eed bay noqon kartaa yaa xaq u leh inay yidhahdaan yani qofka igu oran kara isdifaacina xaq u leh kee wey igu oran kara man ant marka ay oranaysid mahal ka dhid ama hebel wuxuu kugu sheegay oo jaasuus inaad tahay ma iska difaaci kartid qof oran karaahi ma u jiro waxaan ku soo gunaanadayaa sheekh umal intaa marka uu jeediyey sheekh cabdulqaadir cukaashna waan soo sheegnay soo ma inuu dhexda ku jirtay muxaadaraadkiisi 10 sheekh umal ka horeysay dhexdu galay sheekh umal ma sugan salafiyiintu inay israacsanayaan muxuu sameeyey afar kale buu soo daayay sheekh cabdalla albarbaraawi ayaa muxaadaro iclaansaday muxaadaradiisu wuu gala waad aragteen oo waxay ku jirtaa baraha bulshada 17 xalqa buu marinay si cilmiyeysan buu uga hadlay masaa'il kasta oo sheekhu soo eedeeyey sheekh umal eedda saas isaga tuuray xukunkeeda masalada ma aadayn uu ka soo hadlay badankooda markuu soo dhameeyey
gabagabadiina uu ku sii dhow yahay masaa'ilna ay u hadsan yihiin baa waxaa dhexda kaga soo booday nin doctor xasan la yidhaahdo masaa'ilka sheekh cabdalla albarbaraawi si cilmiyeysan oo mukhaalifka munsifka ah iyo muwaafiqa caaqilka ahiba ay ka markhaati kaceen inay yihiin muxaadarooyin cilmi ah oo mawsuuci ah oo diyaarsan oo sheikhu waqti soo geliyey oo soo baaray oo jawaab kasta erey kasta jawaab macquula uu ka bixiyey sheeg qodob qodob iyo ere isagoo isdaba istaagay wixii aad ijmaalinayseenna tafsiiliya yiri culumaa la caaya haddaad leedihiin culummada tusaalayaal heblaaya nagu dhaha saas u soo sharaxa marka isagoo wato oo meel fiican xaalku ay soo maraysay gunaanadkii iyo gabagabadiina kusii dhow baa ninka doctorka ahi isagoon sugan inta ay muxaadaraadka ka dhammaanayso soo gala 4 muxaadaro buu jeediyey 4taa muxaadaro sheeko iyo hadal ay u badnayd iyo in masaa'ilka bannaanka dusha laga maro muxaadaradaas muxaadarada iyada marka qiimeyn guud lagu sameeyo waxaa la rabay hadda kadib qofka hadlaya sheekh umal wax uu sheegay inuusan ku soo celin wax cusub haydo hayo jadiid ama xujo jadiid ama mukhaalafad jadiid inuu ku daro koo waa la rabay tan labaad mukhaalifkiisa khasmiga sheekh umal ee sheekh cabdalla albarbaraawi ah muxaadaraadku galayna inuu ka jawaabo wixii iiraada uu ku aroorin karo inuu ku arooriyo wixii jawaabta uu iiraadaadkii lagu soo arooriyey waxyaalihii sheekh umal sheegay jawaabaha uu sheekh cabdalla albarbaraawi ka bixiyeyna inuu ka jawaabo hadduu ku qanci waaye hadduu ku qancayna dee inuu ku qancayo yidhahdo waa lagu ku qancay jawaabtaas jawaab muqanca wey tii uusan ku qancinna inuu yidhahdo jawaabtaana jawaab saxa maa jawaabna qancisay maa qodobkaasiisan muqnicu ahay intaa midna ma samayn maba soo dhegaysan sida ka muuqata waayo waxaa ka muuqata inuusan soo dhegaysan waxay uga muuqataa wuxuu samaynayaa erayaa sheekh umal uu sheegay oo sheekh barbaraawi ka jawaabay buu kusoo celinaya maxaa ka mid a salafiyiintu waa iskhilaafeen tii buu daldalaya intii qaybuba ka soo tegeyba arrinkaana sheekh cabdalla albarbaraawi waa meel saaray maxaad noogaga soo celisay bal hadda bal waayahay jawaabta haddaadan ku qancin sheeg waxaad tiraa jawaab dee sheeg jawaabaha saasuu ka yiri taas jawaabta jawaab muqanca maaha dheh wax la garan karo dadkay caayaan waa ku soo celiyey yaana ka jawaabay sheekh cabdalla albarbaraawi baa ka jawaabay wixii qodobadii marka uu sheekh cabdalla albarbaraawi uu sheegayey ka jawaabay maba ninkan maba soo dhegaysanba waxaa dhici ka dha maqaatic yaryar iyo wax yaroo laga soo gogoyey inuu soo dhegaysa muxuu iska galay hadal uu sheekh cabdalla albarbaraawi bixiyey qubanaha maxay salaasada waana siday ahayd anigu afartaba waa dhegaystay waana qor wuu soo daayo meesheedaan ugu tegi doonaa laakiin waxaan is iri ereygaani hadda jawaab maahayn idaafana maahayn idaafa maahayna wax cusub oo mudiif idaafa oo muctabar oo la tixgelin karayo oo eedayntii sheekh umal u idaafeeyey oo ku daray safkiisa kusoo siyaadiyey ma jirin jawaabna maahayno dee sheekh barbaraawi 17kiisii xalqo halkaasay yaalaanoo bannaankaasu dhigay oo suu sheegay bannaan hala degu yiri meel bannaan buu degay ma daadifayn oo qodobo iyo waxa ku sugan iyo akhbaar ay leedahay lama imaan hal eray baa ka anfacay oo ku cilcishtaa madaxweynuhu waa muslim hala yidhaahdo buu yiri intaasa ka anfacay iyo anigu hal madaxweynaan leeyahay labada qodob baa ka anfacay bilaaw iyo dhammaantaas ku soo ceshanaya hadda markuu joogo ma intaa kaliya ka hadlo teeda kale intaa jawaabtii loo baahna ma ka bixis adigu waa arki doonaa danta laga lahaa marka waxaan is leeyahay laba qodob bay ahayd horta in lagu buuqo muxaadaraadka sheekh cabdalla albarbaraawi in lagu buuqo walqow fiihi la yidhaahdo oo la yidhahdo wadaadada kala qabtada caanka ka ahayd midug maxay ahayd wadaadada miyaad kala mise macallimiinta kala qabtay ahayd nuno sheekhii dhammaa ku carooday sheekh afguraya miyaa la yidhahda arrintuu kuba caroodayba qodobkaas inuu ahaa qodobka labaad in sheekh cabdalla albarbaraawi cajaladihiisii sheekh barbaraawi iyadoo ta dhammaysto aan jawaabna laga bixin in ay u ekaanayso inuu ictisaamtabay in la yidhahdo wuxuu waa ka jawaabnay waa loo jawaabay doctorka afar xalqaad doctorka uga jawaabay yani raayul caamka in la khaldo kollay khidada waa degeensay siday mid waa fush oo in muxaadarada lagu buuqo oo la yidhaahdo buuq baa jire hala joojiyo waana dhacda ma garat ilka abeysana waxaa la yidhahda hoos ka xariirsan kollay ma soo tilin laakiin saasaa la yidhi halkase aan dhicin dadku caqli ay leeyihiin inaan muxaadaraadkii sheekh cabdalla albarbaraawi 17 hadda baxday aan laga jawaabin ee ay bannaanka yaalaan inta caqliga la waa u jeedaa in oo musifiinta almusifuuna alcuqalaa caqliga waxaan ka wadnaa midka ka ziyaadada midka garashada dheeriga baan ka wadnaaye mukallafka kama wadno oo haddii mukallafiinta dad aan caqligoodu heer sare gaarsiisnayn baa ku jiray waa u jeedaan inaan muxaadaraadkii sheekha aan laga jawaabin anigu marka
idinkugu soo celinaya sheekh cabdalla albarbaraawi muxaadaraadkiisi arrintan hadda taariikhdaayo ka sheekaynta ahna waa xiriirin bay iga ahayd waa u yara baahday bis intuu sheekh cabdalla albarbaraawi jawaabay wixii dan naga gasho aan uga baahano masaa'ilka qaarkood aan dan naga gasho ama aan isniraano alla ilahe waxay u baahan yihiin luuqad kale in lagu yidhaahdo faahfaahin dheeriya in laga bixiyo waa meesheeda laakiin kaafi shaafi kaamil bay ahaayeen dadku waa ku qanceen muqniciinta salafiyiintu waa ku qanceen mukhaalifiin badanina waa sheegeen inay arrinkaasi way jawaab tahay ayaguna haddii aysan macquul ahayn haddii waa kuwaa nin caalim oo shiikho la yaqaan oo banaankaa soo dhigtay wixiisii waxa ku jira ha soo saara waxa aysan kaga qancin ha soo saara shaqada marka aan qabanayahay haddii aan laydno 3 qodob weeye qodobka muhiimka ah waxa weeye kow in aan isbarbardhig ku samayno mawaaqiftii sheekh Umal ee hore iyo muxaadaraadkiisaan inaanu ku samayno maxay isbarbardhig iyo muqaaranayn iyo farqiga u dhaxeeya inaanu sheegno qodobkaasi waa u dambaysiin sanaya laba qodob baan se ka hormarsanay qodob waxa weeye uurku jir hooyada uu ku gowracan yahay baa la yiri muxaadaraadka Dr. Xasan wixii ku jiray waxa nooga muuqda inaanu ka hadalno taas waan ku horeyn doonaa habeenada soo socda markaan taa dhameeyo waxaan ku xijin doonaa inaan ka hadlo haddii alla idmo wixii ka dhimanaa muxaadaraadka sheekh cabdalla albarbaraawi uu ka hadlin masaa'il uu ka hadlin oo ballansaday xisbiyada inta bilaabay si wanaagsan oo loo bogay taariifkeedii markuu soo daayay si wanaagsan oo loo bogay uu soo daayay gabaalna uu ka ballamay inuu ka hadlo ayaa la joojiyay wixii marka ka dhimanaa inaan ku daro waa meelo qodob baan sheegay 3 qodob saddexdaas marka ayaa ahaanaya mid ugu soo horeysa waxa weeye horta inaanu munaaqasho yar la sameeyno Dr. Xasan markaan natiisa dhamayna kadib muxaadaraadka sheekh cabdalla albarbaraawi wixii ka dhimanaa oo soo ka jawaabin ee ku saabsanaa muxaadaraadka sheekh Umal inaanu dhamayno kadibna aanu muxaadaraadka sheekh Umal aan la muqaaranayno maxay kuwiisa kale inaanu la muqaaranayno ayay noqonaysaa hadii alla idmo caawa marka halka ayuu inoo joogayaa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha